السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan dadhayaasha tv-ga barnaamijka waan idin salaamayaa anigoo Rayaan Axmed aad iyo aad baan idin salaamaya maasha Allah. waxaa walaal igu dhacday fanaanka Khadar Ibrahim Kenyo uu ku magac dheer yahay. muddo waxaa dhacday sanad iyo jarjar inaan YouTube-ka ugu jiray aan u daawanayay qisooyinka ama heesooyinka inay igaga dhacdo on inankii aan jeclaado, balse inankii raadcadiisii markaa aan galay doonay facebookya badanoo waxaan arkay ay ku qoran yihiin Times Kenyo, Khadar Kenyo, Ibrahim Kenyo, Khadar Kenyo. markaa dhowr taswiiro isagu leeyahay xitaa ay u wada saarsaaran yihiin. wallaahi run ahaantii kalgacayl aan u qabo ayaa dhacday inaan xitaa aan taswiiradiisi anigu aan saarto facebookayga. runtii intii ragoo dhan dhib aad u weyn baa iga soo gaadhay, taasoo ay tahay ay haddana ay igu dhibaateeyeen. ay waxaan ku oray qaarkood kalsooniga shali soo xidha ay igu odhaaheen, qaarkood dhib badan ay iga geysteen. on ka yeeli waayey oo naftu igu qasabtay inaan hadda kadib ilaa adreyskiisii markaan ka qoostay xitaa Instagram fadligii baan u samaystay. maan isticmaalin noloshayda, FB-ga ma isticmaali jirin, balse dantu waxay igu kaliftay inaan isaga saan u heli lahaa FB aan u furtay. runtii muddo badan markaan sanad iyo kalka aan ku daalay raadcadiisii aan ka qoostay, waxay dantu igu qasabtay inaan isagii raadca tago ilaa iyo Muqdisho. taasoo markii aan Muqdisho tagay cid bili aadan oo aan garanayo ma jirto. shayga jacaylka la idhi ayaa i wada aniga. jacaylkanoo qofkii aan rabay maan gaadhin, balse Muqdisho inuu ku nool yahaan maqlay. isagii Muqdisho ma joogo, Kenya kusoo maqan yahay. waxaa dhacday Muqdisho aaday. Muqdisho cid bili aadan oo aan ka garanayaa ma jirto. lacag wixii aan sida wax igu filan may ahayn, balse markii ahaan talada halkii waxaan u dhaqaaqay niyadeyda, waxna maan qaban qaabsan. waan tagay, cid bili aadan oo ka garanayo ama aan ku degaya ma jirto. runtii hablaan waraystay, hablii baan ku odhiyey dee ma odhan karayo qofkii ma ogtahay jacayl baa i keen, waa layla yaabaya. marka waxaa dhacday inaan halkii aan hablihii ay soo dhaweeyaan oo xaafadda la i keeno toddobaad dhan kadib waraysigiisii iyo warkiisii markaan galay baxo kolba meel aan u ciirsada garan waayey ayaan maqlay san ugu jiray inuu joogo Kenya show ku qabanayo. waxaan is idhi waad ka gaadhaysaa ee soo baxso. kow maalintii aan sidaa uga soo baxay Muqdisho qaraxii dhacay bay ahayd 24 bisha. kadib ilaa Jabuuti baan soo aaday. Jabuuti baan imiday. Jabuuti haddaan kusoo laabtay dalkaygii ayaan haddana damcay ilaa iyo inaan qabto Kenya. haddana ay ii suurtageli weyday ilaa Kenya qabashadaydii aan aadi doonayay. markii aan isku qaban qaabiyeen bixi doono bari oo kale aan diyaar aan ahay, waxaan maqlay Garowe ayuu u kacay isagii tiimkiisii. run ahaantii xanuunkii u weynaa iyo niyadjabkii u weynaa ayaan qaaday. Garowe maba taqaantaa idin meel ay ku taalo amase meel ay tahay, waan garan waayey. runtii taasoon haddana aan ka sii yaabanahay oo wax ali waxaan sameeyo aan garan waayey ayaan dabcan idhi waxba ku dhaanta adoo halkan qisooyinku ka socdaan ayaha nolosha TV-ga inaad qisooyinkaaga taladaada waba intaasoo isaga dhaniba mar lacala xitaa hadduu aniga uuna i jeclaanin keliyaata, bas haddii aan helayo keliyaata hadalkiisa qaabilaadu i qaabilo, aad baan ugu qanacsanahay amase aad baan ugu faraxsanahay.
iska daa isagaba dhanu isuu hor istaagoon helo taasi riyay ila noqonaysaa runtii codkiisa keliya ta haddii aan maqlo oo raalli iga noqda intaasi waa in iga badbadan baan u maleeyaa aniga halkayga ahaan ay aad iyo aad i qancinay runtii anu gabar waxaan ahay Jabuuti degan oon Jabuutina ka deganahay xaafadda afraad ay kaartakaad ay ku magac dheer tahay Rayaan Axmedna waa lay idhaahaa wallaahi aad baan ula dhibaatooday jacaylkiisa oon ilaa haddana aan waxba ka qabsan kari laayahay runtii oo waxaan ku uri meel aan u ciirsado iyo cid aan u ciirsado toona aan garan laayahay Instagramkiisa haddii aan helay xitaa aan u dhigo waxba haba yaraatee aamin waan nahay laakiin wax jawaaban ka helaa ma jirto storage-ka waxyaabaha meelaha usoo dhiga Facebook waan ooga dhigaa haba yaraatee wax jawaaban ka helaa ma jirto please runtii waxaan ka codsan lahaa dunida daafahayga iyo dacaladeeda halkuu ka joogaba hadda inkastoo aan ku maqlay inuu gaalkacayo uu joogo maantadan aan wareysigiisa maqlaayay marka waxaan jecelahay insha Allah inuu ii soo jawaabo ama si jacaylkayga wax igala qabto ayaan rajaynayaa inkastoo aan gabadh cawrada aan ahay oo wax jeclaatay maanta gabadh bilis wax jeclaatana ugumaan horeyn aad iyo aad baad u mahadsantihiin ayaha nolosha TV-ga waan idin salaamayaa